gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa maanta gudoonsiyay in ka badan 1,100 caruur oo go'aamay dharka ciida oo ay gaarsiisay hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Mudane Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarjo oo halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa waxa uu maan u soo jeediyay hay'adda bisha cas ee Imaaraadka. Ubadka yaryar ee hablayeen isku jira ee maanta halkan lagu ciidsiinayo ee ay ugu deeqday hay'adda Hilaal Ahmar waxaanu leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanu mahad celinaynaa cid kasta oo tacabkan iyo ciidan maryaa ciida iyo dharkaba ugu soo deeqday. Duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa iyaguna iftiimiyay meeqaamka ay diinta Islaamku dhigayso caruurta agoomaha ah. barnaamijka waa barnaamij loogu talagalay ciida inay la ciidaan caruurta aabaha leh oo aanay dareemin maanta oo kale inanka ama inanta aabaheed uu dhintay ama aabihii uu dhintay kii aabaha lahaa ee dharka loo iibinayay inaanu is odhan aabaha baa adiga dhintay oo maanta idina waxba ku iibin mayso. waxaan soo jeedin lahaa ereyga agoonta la yidhaahdo inaan la isticmaalin. agoonta marka la yidhaahdo agoonta waxa weeyaan waa erey takoor ah oo aan haddii ilaahay ka dhigo baarikan maanta maaragtay dadnimada iyo haddii ilaahay ka dhigo baarikan maanta maaragtay dareenka midna u ficilay. wakiilka laanqeyrta bisha cas ee Somaliland oo isagu kaalmadan garwadeen ka ahaa Siciid Giire ayaa sheegay in bisha cas ee Somaliland sanadkan ciidsiisay 3,000 oo caruur oo go'aama ah isla markaasina hay'adoodani bisha cas ay ka shaqeyso arrimaha samafalka iyo bini'aadanimada. 3,000 boqol ugu horeysay waxaan ku soo qaabilay Boorame 1,300 waxaan ku soo qaabilnay Hargeysa 1,100 waxaan soo qaabilnay Yaraabaan ku qaabilnay 170 dambe chiefka istaalaata xaafadda yaraa intii kale 1,100 halkan maanta ku qaabilnay. caruurtan oo dareenkooda wax ka weydiina ayaa iyagoo faraxsan oo dhalla cadeynaya si kaliya laaba u soo dhaweeyay dharkani. kaalmadani la gudoonsiyay caruurtan agoomaha ayaa ah kuwo tayo leh isla markaasina la meeqaam ah kuwa ay iibsadaan caruurta caadiga isla markaasina nolol labadooda waalid waxaana wajigooda laga dheehanaya caruurtan farxad iyo reen aan caadi ahayn.